wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo maamulka degmada Marka ayaa maanta isbitaalka guud ee degmadaasi ka daafuray tallaalka caabuqa coronavirus. duqa degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Cabdullaahi Nuur Cali Shaacir, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda Marka Amiin Sheekh Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta iyo dib u dhiska Saalim Xasan Buraale Warfaa iyo isku duwaha caafimaadka degmada Marka Ismaaciil Ibraahim Danguud ayaa lagu bilaabay tallaalka inta aan loo gudbin qaybaha kale ee bulshada, taasoo muujinaysa inay ka run sheegayaan mas'uuliyadda ay u hayaan bulshadooda. sidoo kale waxaa tallaalka qaatay qaar ka mid ah ilaalada mas'uuliyiinta degmada Marka ee maanta istallaalay. ugu horeyntii isku duwaha caafimaadka ee degmada Marka Ismaaciil Ibraahim Danguud ayaa sharaxay muhiimadda tallaalkan. maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha Afraad 2022 waxaa magaalada Marka laga daafurayaa tallaalka COVID-19. tallaalka magaciisa waxaa la AstraZeneca vaccination. waxaa loogu talagalay target population oo ilaa 2,000 ah. target population ka loogu talagalay waxaa ka mid ah point entry-ga, booliska, macallimiinta, shaqaalaha caafimaadka oo dhanba degmada ka shaqeeya nooci doonaha ahaadeen, iyo maamulka degmada uu wareeg gudoomiyaha degmada iyo wixii kale oo maamulka degmada la soo dhoodhan iyo targetka iyo community elders-ka dadka 60 jirka ah oo chronic disease ka qaba ayagana dadka targetka oo tallaalka loo keenay qayb ka yihiin. waxaa kale oo jirta oo muhiim ah tallaalkan waxaa la tallaalay ugu yaraan tallaalkan waxaa qaatay ugu yaraan 17 milyan oo dad qaatay oo wadamo kala duwan ka qaatay. wax side effect uu leeyahay ama dib oo tallaalka uu leeyahay ma jiro. contraindication kiisa waxa ugu weyn qofka meesha laga tallaalay oo xanuun yar inuu isku arko, qandho yar inuu isku arko, wax kale oo complication ama dib ama effect tallaalka uu leeyahay ma jiro. haddana waxaan ku bilaabaynaa tallaalka gudoomiyaha degmada ana istallaalayo maamulka degmada la jooga tallaalaynaa kadib waxaan ka codsanaynaa shaqaalaha caafimaadka inta gudoomiyaha sheegay inta tallaalka loogu talagalay waxa tallaalka lagu bixinayaa isbitaalka weyn ee degmada Marka. gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cabdullaahi Cali Waafow ayaa bulshada uu hoggaanka u yahay ka codsaday inay isbitaalka yimaadaan si tallaalka ka hortagga loo siiyo. gudoomiyaha ayaa sheegay dhanka kale in kiisaska cudurka corona ay ku soo badanayaan degmada Marka, faafitaanka cudurkaasina lagu horjoogsan karo tallaalkan. maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii Abriil 2022 waxaa degmada Marka soo gaaray tallaalkii COVID-19. ilaahay baa ku mahadsan cuduradaasayto oo wareegay dalka Soomaaliya. allahii naga rafciyay oo naga dul qaaday oo noogu yareeyay baa ku mahadsan. inta kadib degmada Marka COVID-19 ka wuxuu ku sameeyay saameyn xoog leh ayuu ku sameeyay. waxaan dareensanahay astaamo badan isla markaas ay cudurkaasi lagu yaqaano dad badan ayaa ku geeriyooday oo waayeel iyo dhalinyaraba u badan. alxamdulillah maanta waxa ilaahay mahdi ah inuu na soo gaaro tallaalkii guud ahaan dalka Soomaaliya laga hirgelinayay gobolada Soomaaliya. waxaa ku mahadsan ilaahay ka soko wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaas ay gaarsiiyay dhammaan dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya goboladeeda ama degmooyin badan muxuu ahaa isla markaa loogu talagalay in tallaalkaasi loo faa'iideeyo. mas'uuliyiinta degmada Marka iyo kuwa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa muujiyay mas'uuliyad dhab ah bacdama ay iyagoon kala harin bulshada ka hor tijaabiyeen tallaalkan. Maxamuud Soofaysane 5TV magaalada Marka. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.